Like a Hellcat. waxaan tacsiin dirayaa ciidankii qaranka booliiska lagu laayay ceelaf weyn oo aan la garanayn sababta loo laayay kuwa dhinta Allah u naxariisto kuwa dhaawaca Allah inoo caafimaadiyo halkaa ceelaf weyn degmada garamayno wax ciidanka lagu laayay wax alli wax dhibaato ciidanka ay isugu yimaadaan oo lagu laayo oo maanta la qiri kara ma jirto shil oo ilaahay markii hore lagu leeyahay saraakiisha booliiska ee jeerkaadiyadana wax alle xidoo laayay aan garanay waxa la yaab leh in cid ama reer uu ciidanka qaranka si dhab yar iska laayo deetana hadii la wada qaato qaranka dul qaato wada hala ilaaliyo xaq la wareego inay noqoto wada xalaal in ciidanka qaranka laayo maalin walba oo deetana ay noqdaan reerahayna laba jirna ay kala baqdaan oo ninku hadduu qolo yahay aan la taaban karin reerkooda laga baqanayo hadduu qaranka yahay aan ugu soo degdegayo bilaacil lagu dilaya wax dhici kara maaha haddii laba doonin xukuumaddu hadduu qaadato dadka hala waaniyo gacan qabo lagu maamulo laakiin dulqaadka iyo duqulnimadu waa walaado laba kala saari karo waxay la tahay waxay gaadhay dulqaadkii inta qaranku dhaafay in kale duqulnimadu ku jiro oo maalinba qaranka uu meed soo walaaqsanayo oo ay tahay ninkii waa lagu ooyaa waxay la tahay taasi inay dee soo afjarmayso caqli ka badan la keeno dhibyaraanta ciidamada qaranka loo leenayo annaga xukuumad ahaan iyo madaxweynaha waan ogahay inuu qaranku leeyahay maxaa laga qaadayaa kheyraha leenaya ciidanka qaranka waan ogahay su-aasha ummadda sugayso waxaynu ka qaadi waxaynaan kula burburin ninka gardarana ku qabanno foormaladeedana waa aad iyo aad looga xumahay mana sii socon karto qaran ahaanna akhafu darribi waadowdahda markay shareecadda eegayaan labada dhibaato taya markaa waa in dambiilina la qabtaa yarkii gardarkaa dee gacantiina gacan ka weynaa loo geysan ila waa la kari karayaa reerka inuu xalaynaya in caqli saareen dee labadii waa laysu eegaya laakiin caqli baa laga doonayaa dee dadka halkaa degana maalmo qaranka leynaya waana deegaan keliya